أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. walaalyaal waxaan soo gaarnay mowduucii sagaalaad kana mid mawaadicdii aan u hadlaynay akhlaaqda wanaagsan. waxaan horey ugu soo hadalnay ikhlaaska, xifdul lisaani carabka in la ilaaliyo, in arrimaha loo kaadiya, in dilo fiican lala yimaado, ammaanada in lagu fiicnaado, in la isgacan siiyo, in la tawaaduca iyo ixsaan in la sameeyo. tobiga ama nooca sagaalaad aan dhehe mowduuca sagaalaadna wuxuu noqonaa alxilmu, dulqaad ayuu noqonhayaa. aslama dufayl ibnu camr aladowsi, waxaa islaamnimo qaatay saxaabi jaliilka oo dufayl ibnu camr aladowsi la yihahdo. markuu islaamnimada qaatay, wasta'dana rasuula sala allahu caleyh wasalama fii an yadhaba liyadcuu qabiilatahu dows. wuxuu fasax weydiistay nabiga caleyhi salaatu wasalaam soo u aada qabiilka dows si ay diinta ugu yeero. nabiga waa u fasaxay, hase ahaatee reer dows dufayl ma aqbalin, xoogaa yaroo adkaana waa la yimidi. farajaca wuu soo laabtay ila nebiyi sal slam waqaala wuxuu yidhi ina dowsan qad casad wa abad. dows way diiday wayna caasisay. fadcu llaaha calayhim, ilaahay bari, fadcu llaaha alla u toog calayhim, kolka habaar macnaa fadcullaaha calayhim waxaa habaar buu dhahay, ha baaba-aane. fastaqbala rasuulu llahi sal slam, rasuulka ilahi wuxuu u jeestay alqiblata, dhinaca qiblada. warafaca yadayhi, labadiis gacmoodna kor buu u taagay. faqaala annaasu, dadki waxay yidhaahdeen halakuu, reer doos waa halaagsameen. maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu habaari doonaa, ducadiisana waa mustajaab. nabiga ilaahay buu baryay oo wuxuu yidhi allaahuma hdi dowsan wa'ti bihim, ilaahayow dows hanuuni lana imow oo ayagoo muslimiina noo keen. meeshii habaar laga filahayey, nabiga calayhi salaam xilmigii dulqaadkiisa wuxuu ugu bedelay duco oo u duceynaa qabiilka uu leeyahay, maxaan ku ihahdaa rabbiyow soo hanuuni oo ayagoo muslimiin a noo keen. xadiiskaas waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim. dufayl ibnu camr adowsi wuu laabtay, qabiilkiisa u laabtay mar labaad. markuu islaamka uu yeeray dhammaan waa islaameen, islaamnima bay qaateen. sidaan waxaa la yaqaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa mid dulqaad badan oo dadka ilaahay u barya ee aan dadka habaarin. habaar dadka lama daba taagnin. daata leylatin, habeenada ka mid ah, waxaa soo baxay khaliifatu cumar ibn cabdilcasiis radiallahu tacaala canhu si uu u baarbaaro u ogaado dadka uu mas-uulka ka aya xaaladahooda. waxaana la socday nin boolis baa la socday oo shardi ama cilaaladiisa la socday. fadakhalaa masaajid bay soo galeen. wa kaana masjidu mudlim, masaajidka mugdi buu ahaa. fatacahara cumaru, cumar baa waxau ku kufay birajulin naa'imi, nin hurdaaya. masaajidka maadaama mugdi yahay, nin hurdaaya ayuu ku joogsaday. farafaca rajulu ra'sahu, ninkii madaxii kor u soo qaaday. wa qaala wuxuu yidhi amajnuunun anta, miyaad ma waalan tahay buu yidhi, dardarahaye. faqaala cumar wuxuu yidhi laa, maya majnuun ma ihi, waa miiranahay. ninkii booliska ahaa wuxuu damcay inuu ninkii garaaca, maadaama uu madaxweynihii ama amiirulmuminiin si xun ula hadlay. cumara wuxuu yidhi laa tafcal hayeelin, farax ka qaad ninkan. inamaa sa'alanii, wuxuu ii weydiiyey amajnuunun anta, ad ma waalan tahay buu i dhahay. su-aashaasuu ii weydiiyey. faqultu lahu, waxaan ku ihi laa, maya. maxaa kaloo yaala, ceeb maata, dhibaato kale maata, ma waalantu i dhahay, ma waalin un baan dhahay. yani ninka anaaba kula dhacay oo dardaray, marka waalin inaan qabin waa u sheegay. marka maxaa laga qaadanaa meeshaas? khaliifaha dulqaadkiisii ayaa caradiisa ka hormartay, dulqaadkiisa ayaa ka hormaray caradii, macnaha intuu caroo lahaa dulqaadkiisuu la yimiday. marka wixii si basiid aho tilmaanta dadka caadiga ay ula hadlahayaan, haddii dadkan madaxda hadda joogto adduunka sidaan loola hadla bal ka waran. qof dhan oo madaxweyneha uu laleeyahay ma waalantahay, maxay ii dardarey, ee dhahay ma waaliniye, iska raali ahaa u dhahaye. waxaa jiray saxaabi la yidhaahdo alaxnaf ibnu qays radiallahu tacaala canhu ardahu. ninkaa waxaa lagu sheegaa xagga dulqaadka iyo xaliimnimada inuu meel fiican ka gaaray, ilaa asiga tusaale loo soo qaato. oo waxaa laleeyahay qofkii maarata dulqaadkiisa loo bogo, waxaa leeyahay axlamu min axnaf ibn qays, wuu ka dulqaad badan yahay. ninka dulqaad badan ma jira ninkaasi. waxaa la sheegaa nin baa caayey, bal aad u fiiri qisaan si cajiib u leedahay. nin baa caayey axnaf ibnu qays radiallahu tacaala canhu ardahu. ninkii caayay uma jawaabin, waa iska socday, wadadiisu iska socday.
واسي صعدا نكن ودب الصعدا عادي وسي وضع ومر والبا عادي وسي وضع markuu axnaf u dhawaaday tuuladii u deganaa oo ku noolaa ayuu ninku wuxuu ku dhahay haddii naftaada wax ku hareen oo caay oo aflagaada ah hadda dhammayso waan ku sugayaa buuri bal fiiri waa nin caaytamahaya waaba suga waan ku sugayaa marka waan ku dhegaysanaya inta yacni maaragtay wixii ku dhiman dhammayso sababtoo ah waxaan ka baqaa buuri dadka tuulo degan inay ku arkaan adoo ay caayay ima adeertii dadkeeda baa degane oo adhow ay ku dhibaateen sidaan dhib kuu soo gaarin caayada markaad dhammaysatay ii sheeg fasaxna isii marka nafta yani caadi buux ninkii saasoo yani maaragtay dulqaadka uu sameeyey marka ninkaa bal dulqaadkiisa bal ka waran nin dhan oo caahayo aflagaadaynaya wuxuu leeyahy tuuladeedii waan imid dadkii yani meesha degan waxaa laga yaaba in lagu dhibaatay si aan lagu dhibaateen wixii ku dhiman dhammayso ninkii asaa isku yaxyaxay markii dambe haddaba maa huwa alxilmu dulqaad horta muxuu yahay alxilmu dulqaadka waxa waa dabdu nafsi nafta oo la xakameeyey nafta oo la qabtaa la yidhahda wa kadmu lgaydi carada oo la qariba la yidhahda walbucdu ka fogaashaa la yidhahda can ilghadabi cara laga fogaado yacni qaydka inaad caradaada xakamayso caradan aad ka fogaato wamaqaabalatu sayi'ati bilxasana haddii xumaati lagu geysta inay wanaag la ti'aadsan idfac bilati hiya axsan inay noqoto baa laga rabaa micnaheedana ma aha mar haddaan leenahay qofka xilmi iyo dulqaad la imaaw inuu qofka isdullaynaya ama dulli uu aqbalaya ma ahan وإنما هو الترفع عن شتم الناس وحدك اسكسر سينيا شخصي ضدك إنه أفلقادي وحو نفتيسي كان زهيا كفوجينيا ضدك إنه عيبي أما أو عاي أما أو أفهم أوجيسه حلم الله تعالى بل إلهي حلمي جيس أن أرجنا حلمي أما دلقاتك وصفة من صفات الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الحليم يعني إنه حليم يحدلوك هو أرج wuxuu arkaya dadka macaasida sameynaya xumaatada sameynaya mukhaalafada sameynaya amarkiisa khilaafahay haddana cadaabku ma soo dejin imisaan qaladan galnaa maalintii waa badan tahay imisa ayaa dembi la galaya dhulkan korkiisa lagu sameynaya haddii ilaahay xaliim uusan ahaan lahayn hal maan haddii qalad la galaba waa la baabi'i lahaa dadkan waa la dhammayn lahaa ciqaabta ilaahay kuma soo dejinay subxaanahu watacaala waclamuu ana allaha gafuurun xaliimun waclamuu ogaada dadow أن الله الله غفور ومد ودم دافع لمن تاب إليه عدي توبات كنت حليم ودلقات ضدك وحي قلدك دعاي وين حلم الله وانكواك أساس وين حلم الأنبياء أنبياء دلقات كودي الحلم دلقاتك وخلق خلق من أخلاق الأنبياء أنبياء أخلاق ومد كمد أهوين الله سبحانه وتعالى إبراهيم منه كورما وحوداي إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم دبأهتي إبراهيم لأواه ومن نقش بدن أو توبات كان بدن حليم هدنا دلقات لوين إسماعيل ملوك هلا ألا وحيري فبشرناه بغلام حليم فبشرناه وحاو بشارين إبراهيم بغلام ويل حليم دلقات بدن رسولك عليه الصلاة والسلام وحوها أحلم الناس ذاتك منك وود دلقات كبدن نفتيس عريريو بينين وحددك مسلمين تقاركود قالتكو يسمانيان صحابتي سنة وحو باري نبي عليه الصلاة والسلام ضبط النفس وكظم الغيظ نفط إن حكميان عردنا أي يعني مرتي إسكا قبتاني كاللحدان هذا بو حلا ربا إن التلمان تسأل لها عرض دلقات التي يعني عرض أسكي إلى ليسد دلقات في عنا التي مادن فضائل الحلم دلقات كفضل أولي أو محكي عرنا الحلم صفة يحبها الله سبحانه وتعالى وحلمك ودلقات هذا أقول صبر كماها صبرك ومدك الأسين يقولون موضوع نصوص عضوين حلم إن حليم نقطد ولا فرن أرلي هاتد وهو صفة يحبها الله عز وجل وجعله الرسول كوحير عليه الصلاة والسلام أصحاب سميت كمذا إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنات لبا أرين بلاغاها لو إله وجه عليه من ظهر وحوين الحلم إن الدلغال لهي والأنات يكاسين حديث كما مسلم يا صوص صاري نينكا مركو لهلا إن طبعا وحي هذه نمن مسلمين مدينة النبي ويمدي عليه الصلاة والسلام مركي مجال سوق جلين فرحة إجعالك محبة إهلو ورسولك أيوة قبان fardahoodii iyo wixii ay wateen ayagoon furfurin oo dharka iska bedelin ayay maxaan ku raay ordayna nabi u tageen calayhi salaatu wasalaam ninkan wafdigaas oo kamid ahaaye wuxuu yeelay horta faraskiisa uu furay meel buu dhigay waa qubaystay dharkii safarka uu yimid ciriiri dharkii safarka uu wasaqad ahaa buu iska dhigay asoo is hagaajiyo degan ayuu meesha u tagay marka laba arrin buu ilaahay jecel yahay ba ilaahay subxaanahu wa ta'aala kugu manaysay wari alxilmu dulqaad inaad yeelatid wal anaatu kaadsiin in wax wal u kaayso hubisa macnaha الحلم دلغات كسي سبا وسيلة للفوز برضا الله وجنته وسيلة ويا موضوع وياهي إنه قفك كوجولي سو هلو رال أنشاها الله يجندي سبا رسولك عليه الصلاة والسلام حوري من كذب غيدا قفك عرق قريبوري وهو قادر أسوء أوذى على أن ينفذه إنه ملمري
dacaahu allahu alla baa ugu yeeray caza wajalla calaa ru'uusi khalaa'iqi khalaa'iqda ru'uustoodii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yukhayiruhu wuxuu akhtiyaar siiyaa oo loo doorrasiiyaa min alxuuri alciini hablihii quruxda badnaa indhaha waaweynaa ee cadcaddaa ee jannada laga helayay maashaa intuu doono. xadiiska abi daawuud iyo tirmidi baa soo saaray oo macnaha waxa weyaan xilmiga iyo dulqaadka oo wasiilatun min lilfawzi birida allaahi wa jannati buu noqonaya. xilmiga walaalayaal wuxuu daliil u yahay calaa quwati iraadati saaxibihi. ninka xilmiga le ama qofka laga hela tilmaantan xilmiga iyo dulqaadka yacni doonistiis inay xoog badan tahay oo naftiis inficaalkeeda uu xakamayn karo. nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa shadiidu bisurca, kan legtid badan lama dhaha surca. yani surcat waxaa la wadaa mughaalabatu nnaasi wa darabihim, dadka in mughaalabatu nnaasi wa darbuhum, dadka in laga adkaado oo laga xoog badiyo oo la legda, kaas shadiid lama dhaha. inama shadiidu shadiidka iyo midka adag waxa weeyaan alladii midkii waa yamliku nafsa naftiisa hanan karo cinda alghadab markuu caroodo. markaad carooto oo inficaal ama dareenkaada oo aad u kaco haddaad naftaada ceshan karto ninka markaasaa la dhihi kara qofkaas waa qof shadiid oo daran. xadiiska imaam muslim ayaa soo saaray. alxilmu wasiilatun likasbi alkhusuum, xilmiga sidiisaba wuxuu wasiil u noqdaa dadka dooda kugula jira inaad soo kasbataba. wataqalubu calaa shayaadiinihim, shayaadiintu inaad ka adkaataba. wataxwiiluhum ilaa asdiqaa, haddii ay qofkan xumaato samaynayey oo yani xanaaq samaynayey waxaaba dhicaysaba inaa asiga aad la soo wareegtaba oo asiga xaggaa aad soo aadis. allah wuxuu leey tabaaraka watacaala idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim. idfac ku reeb bilatii tii hi ida axsanu wanaageed tan wanaagsan waxaad ku reebtaa wixii xun. faida aladii kii baynaka wa baynahu cadaawatun adi asiga coleydtaydi ka dhexeeyey oo dhexdeen colaad ay dhex jiri kaanahu waxaa daa waliyun qaraab iyo weli oo xamiima naxaaya oo aad u naxariisanaad mooda. marka cadowgaa caano macaa la siiya waa sooma markay yidhahdaan markaas waxa weyan isbedel baa ku dhacay, macnaha isbedel baa qof ku dhacay. horaa waxaa loo yidhi idaa sakata can aljaahili faqad awsactahu jawaaban wa awjactahu ciqaaban. idaa sakata haddaad ka aamusta can iljaahili kan jaahilka haddaad ka aamusta faqad awsactahu waad u waasicisay jawaaban, jawaab ballaaran baad siisay. jaahilka haddaad ka aamusta hadduu warku lagu soo aado awjactahu waadna xanuunjisay ciqaaban xag ciqaaba asaa horta xanaaqaya qofkii maxaan ku ihahdaa maanta inaan caytima haddaa dulqaad ada la timaada. qodob shanaad oo dulqaadka waxa weyan walaalayaal alxilmu wasiilatun lilayli maxabati nnaasi waixtiraamihim. dadku way ku jeclaanayaan wayna ku ixtiraamayaan mar haddaa tahay qof aad u dulqaad badan oo hebel waa dulqaad badan baa le. horaa waxaa loo yidhi awalu maa yucawadu alxaliimu can xilmihi ana annaasa ansaaruhu. awalu maa shay u hore yucawadu loogu bedela alxaliimu kan xaliimka ah can xilmihi xilmigiis waxaa loogu bedelaa ana annaasa ansaaruhu, dadku inay noqdaan taageero fiican baad helaysaa markaasi. qodobka lixaad waxa weeyaan alxilmu yujanibu saaxibahu alwaquuca fi lakhdaa. yani xilmiga iyo dulqaadka wuxuu saaxiibkiisa ka ilaalinaya inuu ku dhaco gefka iyo meelaha khatarta ahoo yani maaragtay halista inuu ku dhaco. walaa yucdi alfursata lishaydaani, shaydaanna fursad sii maayo likay yusaydira calayhi. mar haddaad dulqaad leedahay shaydaanka xataa waa ka nabadgelaysaa. marka waxaa naga rabaa inaan dulqaad aan la nimaadno. haddaad dulqaad maqashid waxaa lidkiisa ah alghadaw, cara horta maxay tahay markaasi si aad markaad shey waxa leedaada marka lidkiisa aad barato ayaad yani hadda waxaan kasoo sheegaynay dulqaadka iyo faa'iidada iyo qiimaha iyo wasiilada iyo waxa uu yahan baa soo aragnay. bal cagsigeeda waxa ah ama arrintaas kasoo horjeedo alghadaw, caro maxay tahay marka. alghadabu waxaa weeyaan sideedaba huwa infaadu lghaydi wa cadamu saydarati calaa nafsi. infaadu lghaydi, carada inaad meel mara soo fuliso waan, wa cadamu saydarati iyo inaad saydaraynin calaa nafsi nafti inaad saydaray karin, nafti inaad gacanta ku celi karin macnaha. wahuwa khuluqun damiimun, waa akhlaaq aad u liidato aad u xunwaan. faqad jaaa rajulun ila nabiyi sal slama, nabiga ilaahay nin baa u yimid faqaala lahu wuxuu ku dhahay awsinii idardaaran ya rasuulka alow idardaaran. faqaala sal slam ilah wuxuu yidhi laa taqdab ha caroonin buu yidhi, carada iska ilaali. faacaada rajulu asu'aala, isla su-aashii buu yani ku celceliyey. waradadahu miraara marabana su-aashkusa markasuu yidhahday ii dardaaran awsini markuu yidhahdaba nabiga wuxuu leey laa taqdab ha caroonin. faqaala nabiyu sal slam laa taqdab macnaheeda waxa weeyaan caro waa bini aadamku waa ku samaysan yahay carada oo wax maaragta qofka inuu caroodo wax uu samaysan yahay waa oo naftiisa cabsido oo kale inaad carooto inaad faraxdo waa wax qofka ku abuuran. ha caroonin marna maaha, laakiin carada waxa ka laazimahaya ha fulin waay. carada waxyaabaha ka laazimahaya iska fogeey, saasaa dhihi kara. walghadabu noocaani,
carada ana waa laba nooc oo ghadabun mahmudun cara la mahadiyo وغضب مذموم أي عار للنوع عرف في عنان إمد في عن بل عرس يكون في عنان يسأل أرجنا بقى الغضب المحمود وحوين هو الذي ومنك يحدث إيمانيا بسبب انتهاك حرمة من حرمات الله شرعي إلهي مرك لو عياره أو لو حد بدين إلهي أو النبي يسلا أفلق قدي أو كتابك يسلا جوب أو لو عياره يعني إن حناق ذا مركزي وواحد منك لو بهاي حناق اسمه كيلا نعاي وحناق لو بهاي ومركا أضو ujeedada ay tahay ina difaacda yani maartay diinti cirdiga sharafka dadka muslimiinta naf iyo maal ama xaq yani maartay oo qof intuu dhacay aad soo celinaysid inta in loo xanaaqa taas waa al-ghadab wal-mahmud baa leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam asiga baa lagu dayana yani al-qudwatu al-hasana asiga marka waxa leeyahay laa yaghdibu abadan illa an yuntahaka min hurumaati llahi shay'un marnaba macarooninin nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa xurmada ilaahay in lagu dheelo mooyaane haddii xurmada ilaahay lagu dheelo oo waxyaabihii lama taabtaanka ama qadka cas aha la taabto rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa caroonayay marka alghadaw almaxmuudu kaas weeyaan midkaas haddii aad ku dhacdid oo adoo xaq darro la sameyn aad aragtid aad ka xanaaqdid micnaheed ma aha mid aad ceeb ku mudanaysid ma ahan alghadaw almadmuumu maxaa weeyaa marka yani carada yani la eedeeyey maxay tahay وهو الذي يكون لغير الله إلى غير صحيح هذا معناه السبب كي سوا سبب اسك بسيطة مرقوف كي ما أبو نفتيس إنه حكم وحير بمقال بل حروق حناقة هيا مركز أرين كي سوا عيرت إنه وصن والضبية ميل أن لما هذينين وحير ما تاني من أنت حناقان حاسك وحير أفجاره من قال سدح الدلقة كفورية وليه سدح إذا بنكوش داي نبض باكته ما أنت كبعد أكتر اللي هو أركمان ما كبعد ودادور هذين قيل ليه هذه سدح هل ما لقى سوق هذا لبد هل ما لقى سوق هذا رفاضوا مرهية مرك هور ما إسعليس نفتها كأتكاتن هذا قف رجعت عن مسؤولة نفتها مرك هور إن حكم يسأل يا دنيا هذا النقوني نفتها هذا قف سيدري كرين نفت أي هويس أي هجيس نفت محمد مرق ترك الجنسة شيطان وكيفيسا تردد مسكادي الدنيا ده شيطان وكيف ما قف بقى حجاير قف وسكعلين كرو يعس إليه كرا أي كحناق أو حكى هلينا قرأ قان حبض بوك رفنا منكو دلو دنتو أركان مركز أردى أما بحث وكتمينا قرأ إسكتورة عبادة أما مولي جيدن ملينين marka hore waxa rabaa caradaada inaad aad ka adkaato haddii carada ka adkaawaysid qof rag oo mas'uul ah oo yani nool oo xayi ah ma noqon kartid rag iyo dumar isku mid waan carada in laga adkaadana waa shay muhiim marka qofka waxa rabaa inuu naftiisa ka adkaado caradan oo iska fiiriyo mawaaqiftul ghadab waxa kamid oo suurgal tahay in dulqaad lagu qaabara oo nafta lagu xakamo ma yuxka waxa la sheegay ana rajulan ayaa aada abubakr as-siddiq buu dhigaa ta'ala anhu bi kalaamin hadal fi athnaa'i julusi asoo la fadhiya maca nabi sallallahu alayhi wasallam ilaahi أبو بكر إن نبي إسلام جوجو أي نين صقلي أو يمدي نينك مركو يمدي أبو بكر بو عايل فولي عايب الله كوري فصمت أبو بكر وآموسي ثم شتمه مركلو عاي نينك بعلنا مرة ثانية مرة بعد فسكت أبو بكر وأسكا آموسي ولما شتمه مركو عاي المرة الثانية مرة سدحات مركو عاي وأبو بكر أتكيسوي رد عليه أبو بكر بقول شوابي وأسينا وركي وعاي وريجري فنبي وافد إنتاس فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى وإستاغي من المجلس فردق بوككعي فردق أبو بكر ولا فردي ونبي وككعي فأدرك أبو بكر النبي كتوتك وقال له لو كل هاي أغضبت علي يا رسول الله ميدي أحناقضي معناه محد يقص صوتك فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إشاغي أن ملك من السماء كيمدي أي نزل الصوت دقي يرد عليه سنين كان أقول جوابه وحماته وشيء وبنتك الشيء سوء جواب لها ويدافع عنه السنين كعلينا كعليني فلما رد مركو جواب أسيق جواب ذلك هو أسيق ملقي إن صرف ولابتي الملك ملقي وقعد الشيطان بوسي هذه مركز جواب مركز رد القاضي الله هذا وحليم بعد هذه مكوب بكوعي وأسكيد القاضي مرات بكوعي وأسكيد القاضي ما صدحات وأذكي سويسي ماشي وحص كبح ملقي خيرك وكبحي الشيطان بصوغلي أنا مال الشيطان صوغلي إن فرديو وأنسي جوجاي صاحبي ما أهبوي معناه طيب قولك مركا عردنا دبكا سوليه عرب محن كو داوين كرنا مركا وابا عروننا واغنه دبعدين ان عروني ولا اوغيahay maxaan ku daaweyn cilaaj al-ghadab maxaa nabiga kaleey salaam wuxuu noo sheegay dhowr arimood haday la sameeyay caradaada way xasilaysaa midka ugu horeeyo waxa weyn as-sukuutu inaad aamusto mar haday caroota hadlin hadii kan hadallo badan baa ka soo dhacaya haday caroota hadlin aamus rasuulku wuxuu leeyahay idaa ghadiba ahadukum falyaskut qofkii markuu caroodo ha aamuso imaam axmed ayaa xadiiska soo saaray shaacira wuxuu yiri إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن جاوبته سريت عنه
وإن خليته كمدا يموت إذا نطق السفيه دبالك مركو هالله فلا تجيبها وجواب قف دبال هذا كل هالله عقل لهين وجاهل أو حبا قرني إنه عيال سوقه وحبها وجواب فخير من إجابته السكوت إن الجواب إن كأمس وحا خير بدن إن كأمس وين فإن جاوبته سريت عنه هذا الجواب بس نفسه وهلبة ما لو كنا نفسه وهلبة يعني وركيس لبو بونسي شب ذاك هذا وحب آذن دهن انتو يعني حناق ولا دمانيا ساب اسعينا مركز شب كدابا كآمس بوليه وإن خليته كمدا يموت وحد مداولي هدي آمس شب ترى فراك قادنا عسى دمانيا يعني حناق درت بولا دمانيا مركز وحبها رواق بولي مركز وسيلة كواد وحوين لو داوين كلا الغضب السكوت إن آمس وين مد اللباد وحوين الجلوس على الأرض ألقى فريست هذا تايند وفريسني اسمعنا رسولك عليه الصلاة والسلام حوري ألا وإن الغضب جمرة عرض وجمرة ورحل رعدبه العيسوان وفي قلب ابن آدم من آدم قلبي سكوسوان وظنه سكوسوان أما رأيت ميان أركن إلى حمرة عينيه لبيس إنه إني جدودني يقف إني برجدون قضل ليه وانفتاخ أوداجه حديد سان لون تكوهر يرسن أي تاج ما ينبوح سماهيان فمن أحس قفك درن بشيء ومن ذلك أنت كمده فليلصق بالأرض دولك سولجي بس دولك اسكو علي حديثك waxa soo saari tilmidi Imam Ahmad ayaa soo saari marka waa sabab kale yani dulka in friisato carada dad taagna hada friis xaalad hadad badasho sida waa maxan ku yiraahdaa carada way degaysa qodob saddex carada ku dejika lagu daaweyn karo waxa تغيير وضع الذي عليه حالات كسوانتنا wax ka badasho rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ida ghadiba ahadukum qofkii markuu xanaaqa وهو قائم أسوتين فليجلس هفريستو فإن ذهب عنه غضب على هدي كتبته واسد للربي وإلا هدي على كتيجي ويسنة فليضجع حجفته دق دع مع عرض هذه الساجة الساجة كعروتي فضي الإمام هذا فضي حتى سيدي ويسن شيف الإمام حالة دسن حين كينيسا إن عرض أي كادكتو وقلبك السدحات قلبك أفراد عرض الود الجكر وحوين الوضوء بالماء أو الاغتسال إن ويسق هذا أما أنا قبيسة طبعا كلك كعشيدان باكوشيدة مقطع شيدان كوشي إنك فائدينه هذا عن مرة تأسس قبوج السبب رسولك حوير عليه الصلاة والسلام إن الغضب عرض من الشيطان سيد على مرة شيطان حقي سيك إماتا وإن الشيطان كان خلق من النار دب أي الله يؤمي وإنما تطفأ النار دب كانوا حلو دميا بالماء بي دب محدمي بيا كأذن فإذا غضب أحدكم قفكي مركو عروضه فليتوضأها ويسقاته مركا حديث أبي داود أيا صو صاري مر هذا على قدر أنت ويسقاتك وددال وهنقول نقف ويسقاتك محنكور هذا يعني معناته كود ددال مركز هذا ويسقاته شيطان هو خيرانا حتى على هذا مر البيان وحد دائما محاولة سنقول الدار من ولا ليال إن المركز عن ويسقمنا حالات كسر مركز مصوص استعمال شبه سو ويسقاده أما بناك ويسق مصوص ويسق مهرته ويسقاده هذا مر ونقف ويسق بنو دائما نقف متواضع النقو شيطانك ويرانيا إنه يعني وكمل مري هدي إسبدل قادر إنتنا وحاجة على كات من إسبدل قلب كشنات وضب على الودا وين كروح وين تدريب النفس على الحلم نفط هذا إن برتو إن الدلقات الاتماع وحوار وصائش ومهم سنة وين ولا لين يعني الله سبحانه وتعالى أنت أسبوع أمري محيري خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو سامحدة اسكرافدة وأمر بالعرف وناجا نفر وأعرض عن الجاهلين وحما قارتنا كله حسدوا مالك الله سبحانه وتعالى مرو تلمامة الدومنك سوى نايسون أخيارته عباد الرحمن مرو تلمامة وحوري وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهلين تدي لها الله محيليه نبضي باي لها معنا ملمور ما يعني مركاسي قفكي أو عايتمي أما قفكي جاهلك وح شيء أسيا هر عرونا يبا محان يسيميا أوليه مركو إن لقى أمون سلاوة مالك الوح ليه وإذا ما غضبوا هم يغفرون مركي عرودان وابا اسكتلاه فيانبا رسول كان واسو مرني أصور يري لا تغضب عرون حديث البخاري يغير كيس أي صوص صارين قفك مسلم كمرك حلمي دلغات وحرب إنه أخلاق وناس كدي ولازمة دائما عرضنا اسك إلالية هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أضفيت على الحسن العبقى فالورد